waxaan salaamayaa ugu horreyntii shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan 23 February 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo. Assalaamu calaykum. waan ku salaamay daawade meel kastood kaga sugan tahay dunidan. waxaan ku rajaynayaa caafimaad iyo badqab. barnaamijkeena maantana waxaan kaga hadli doonaa taariikh nololeedka ra'iisul wasaare hore wadanka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. haddaba madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay Xasan Cali Kheyre taariikhdu markay 23 Febraayo 2017. xasan cali kheyre wuxuu dhashay taariikhdu markeed 1968 waa nin dhalinyaro ah marka loo eego ra'iisul wasaarayaashii hore soo maray wadanka Soomaaliya. xasan cali kheyre wuxuu deegaan ahaan ka soo jeedaa degmada loo yaqaano Ceelbuur ee gobolkaasi Galgaduud, halkaas oo ku soo barbaaray oo ku soo qaatay noloshiisii hore. ra'iisul wasaarihii hore wadanka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre wuxuu haystaa dhalashada dalkaasi Norway, halkaas ayuu ku noolaa muddo dheer. xasan cali kheyre wuxuu ka soo shaqeeyay hay'ado fara badan sida hay-adda samafalka iyo arrimaha bini'aadantinimo ee wadankaasi Norway ee loo yaqaano NRC. wuxuu kaloo markii dambe noqday madaxa qaybta Afrika shirkadda loo yaqaano Som Oil Gas ee fadhigeedu yahay wadankaasi Ingiriiska, taas oo dowladda Soomaaliya la gashay heshiiska shidaalka baarida badda Soomaaliya. ra'iisul wasaarihii hore wadanka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waa ganacsade ku hawlan dhinaca ganacsiga. sidoo kale hay-addii uu shaqeynayay NRC wuxuu u shaqeynayay taariikhda markay 2006 ilaa 2014 wuxuuna ka noqday agaasimaha guud ee Geeska Afrika iyo sidoo kale Yemen. 2014 waxaa loo magacaabay howlfulinta Afrika shirkadda loo yaqaano Som Oil Gas ee laga leeyahay wadankaasi Ingiriiska. bishii February 17 2016 UN Monitoring Group ayaa soo saartay warqad ay ku dalbanayso in la socdo dhaqdhaqaaqa Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale lacagaha u yaala bangiyada, iyadoo lagu eedeeyay inuu wax lugal ku leeyahay ama xiriir u leeyahay kooxaha Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. 9 Juun 2016 warqad ay soo saartay UN Monitoring Group ayay ku bariyeeshay inuu Xasan Cali Kheyre wax xiriir la leeyahay kooxaha xagjirka sida Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. dacwadii lagu haystay ra'iisul wasaarihii hore wadanka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ee soo gudbisay UN Monitoring Group ayaa dhammaanba beenooday, sidoo kalena waxay noqotay war beeno oo la faafiyay. muddadii uu madaxda ka xafiiska Muqdisho Som Oil Gas waxaa shirkadaasi lagu eedeeyay musuq iyo sidoo kale inay saxeexday heshiisyo been abuura. taariikhdu markay Agoosto 2015 xafiiska baarista dambiyada halista ee wadankaasi Ingiriiska ayaa shaaciyay in la furo kala dacwadeed ka dhan ah shirkadda Som Oil Gas ee ka shaqeysa gudaha wadankaasi Soomaaliya. Agoosto 6 2013 dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiis la saxeexatay shirkadda Som Oil Gas ee shirkadda markaas oo la abuuray oo laga leeyahay wadankaasi Ingiriiska. hawsha ay qabanayso waa ururinta macluumaadyada la xiriira kaydka shidaalka ee badda Soomaaliya. daawadayaal, barnaamijkeennii aan ku ururinay taariikh nololeedka ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre waa naga intaan ku midowmid waxaan idinka tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.